dembiga labaad ee carabku uu sameeyo waa alqawlu cala allahi bigayri cilmin, inaad ummadda u fatwooto ood ummadda sheekh u noqoto adigoon aqoonteedii haynin. walaalayaal, waa dembi culus, waa dembi adag. dadka aan waxba garanaynin hadday aamusi lahaayeen ummaddu ismay khilaafteenba, ismay diideenba. alqawlu cala allahi bigayri cilmin khatartiisuu leeyahay. nin wadaadii fatwo uu bixiyey baa dhiig lagu xalaashado dad lagu laayey. isaga maxaa laga dhigayaa markaa? qaatil miyuuna noqonayn? ninkii dadka dilay miyuuna noqonaynin fatwadiisa haddii cid lagu dilo? waayo nebi maxamed wakhtigiisii nin baa madaxa dhaawacuu ka soo gaadhay, janaabana way ku dhacday. wuxuu yidhi saxaabadii buu ku yidhi, war qiil maxaad ii haysiin? buu yidhi ma maydhan karee, naburkana igu yaalla. markaasay ku yidhaahdeen inaad maydhato mooye xal laguma hayo. waa fatwadii ay soo saareen. nebi maxamed markii loo keenay muxuu rasuulku ka yidhi? ninkii wuu dhintay intuu maydhay ayuu dhintay. fatwadii loo fatwooday ayuu ku dhintay. muxuu rasuulkeennu yidhi sala allahu calayhi wasalam? rasuulkeennu wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum ullah, way dileen ninkaa allaha dile buu yidhi. qoladii fatwootay ayuu rasuulku ka soo qaaday inay dilka iyagu fuliyeen. walaalayaal, alqawlu cala allahi bigayri cilmin waa kelmad aad u adag weeyi. balaynu aragna ilaahayna qur'aanka wuxuu inagu yidhi, yaa ayuha nnaasu kuluu mima fi lardi xalaalan ayiba. wardadow cuna waxaanu dhulka idinku beernay isagoo xalaal ah oo wanaagsan welibana. walaa tattabicuu khuduwaati shaytaan, tallaabooyinka shaydaanka iska ilaaliya oo shaydaanku yuuna imaam idiin noqonin. arday ha u noqonina shaydaanka, yuuna macallin idiin noqonin. ha raacina shaydaanka oo yuuna hage iyo hogaamiye idiin noqonin. walaa tattabicuu khuduwaati shaytaan. maxaa lagu sababeeyey? innahu lakum caduwun mubiin, waa cadow cadaawadiisu ay caddahay. yay ka qarsoon tahay shaydaanku inuu cadow kuu yahay? aabbaha iyo hooyadaabaad ogtahay wuxuu u geystay. dembiyadu ina baday ayaynu ognahay, cadaawadiisu way caddahay. muxuu rabbi inoogu sii daray? inamaa yaamurukum bisuu waalfaxshaa wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun. waa 3 dembi oo shaydaanku ummadda ugu yeedho. marka hore muxuu kuugu yeedhayaa? inamaa yaamurukum bisuu, wax kaste oo gef ah oo qalbiga mu'minkuuna raalli ku ahayn oo diintu ayna ku ogolayn. suuga waxa loo yaqaanaa waxa kaa nixinaya, kaa ayuu kuugu yeedhayaa. shayga adoo samaynaya marka lagugu arka aad ka naxaysid eed la madoobaanaysid, kaa ayuu shaydaanku kuugu yeedhayaa. waxaa laga dambaysiiyey kaa hadduu kula helo, haddaad yeeshood kaa ku dhaqaaqdood samayso, jaranjaradii wuu ka sii korayaa. markaa wuxuu ku darayaa walfaxshaa, zinada ayuu haddana kuugu yeedhi. ummaddu inay bilaa nasab noqoto, ummaddan inay bilaa abtirsiin noqoto, ummaddu inay noqoto ummadda yacan inay noqoto. walfaxshaa waa zinadii. suuga ayuu ka sii sarreeyaa. kaa markuu ku guulaystay ayuu jaranjaradii kor u sii raacay. kii ka dambeeyey buu haddana kuugu yeedhay. maxaa ka sii weyn zinadana? wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun, inaad fatwootiin oo ilaahay dushiisa waxaydaan garanaynin inaad tidhaahdiin diinteennu sidanay leedahay iyo sidanuu sharciga islaamku ina yidhi inaad tidhaa. taa ayuu shaydaanku kuugu yeedhayaa. walaalayaal, laa adri, garan maayo waxaadan garanayn inaad tidhaa ceeb maaha. waxa aadan garanayn garan maayo inaad tidhaa ceeb maaha, waa sharaf. laakiin haddaad mooddo garan maayadu inay ceeb tahay, adna waad halaagsami, ummadahana waad halaagi. ha laga fiirsado markaa. wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun. waxaynu ognahay maanta nin alla ninkii cimaamad sitaa iyo nin alla ninkii masaajid ku jireed mas'alo weydiiso, waa sidanuu ku odhan maayo masalada aan halkaa ugu noqonno. ku odhan maayo masalada berigaasay soo baxdo culimmadu sidaasay ka yidhaahdeen oo iskugu khilaafeen. fatwo yaroo gaaban uu jeebka kala soo baxay unbuu kuu dhiibi, meel alla meelay ku salaysan tahayna garan maysid. wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waa qodobka 3aad ee ibliiska iyo shaydaanku ay inoogu baaqayaan. walaalayaal, halkaa waxaa inoo muuqata inuu carabku dembiga labaaduu gelayahay, an taquluu cala allahi maa laa taclamuun.